وعن وناكسن داود يال ومركله يا برنامج دني تحنا اتكلا سعتين ايرو تي في وبرنامج عصب نو مقعدرني سويالكا اوغاسيدا غدبورسي iyo waayihii ku xidhnaa waa barnaamijkan ku wadno in uu noqdo qobanayaal ama taxane idamaale inta aanan u gelin daafurka ama yagleelidii ugu horeysay ee bulshada gadabursi ay yeeshaan ogaas guud waxaan marka hore doonayaa in aan wax yar idin xasuusiyo dastuurkii bariga ayada ah oo laga jooga maanta qarniyo aad u fara badan la yagleelay dastuurkaasi oo noqday kii u buddhigay qaabka iyo nolosha ay isu agaasimayeen bulshadaasi tan iyo barbarkii ku dhacay saldanadii aanu gobolka ka dhici jirin ee Adal Empire ama boqortooyadii Adal bulshada Soomaaliyeed waxa ku dhacay dhibaatooyin fara badan kuwaasi oo ku sababay agardamooyin fara badan iyo inay u jabaan cadowgii ee soo jireenka ahaa dadkaasi waxay u kala hayaameen daafaha dunida hadaba jabka wixii ka dambeeyay bulsho waliba waxa ay si gooni ah isula aragtay ama ay si gooni ah u xuraamisay in ay ka badbaado walahooga iyo waayihii adka ee markaa ku xeerna qayba kamid ah ayanu markaa maanta daafuri doonaa waayaha adag ee soo maray ee geeska Afrika hadaba dastuurkan oo ay markaa iyada dib loo habeeyay ama bakhti afuuf lagu sameeyay ayay bulshada gadabursi samaysatay ama ay samaysteen iyagoo markaa ku hililaya ama ku niyadsan in ay noqdaan ama ay noqoto mid in badan oo waayaha ku soo foole wax badan ka tari doona kolkay taariikhdu ahayd qarnigii 10aad hijriyada ayaa qabiilka gadabursiga waxa ku yimid runtii dhibaatooyin badan oo ay la wadaagayeen dad yoogii ay jaalka la ahaayeen ama ay dhiig wadaagta ahaayeen dhibaatooyinkaasi waa kuwa aan in badan oo hore ee ka hadalnay waxaas u sii dheeraa dagaalo ba'an oo markaa ay si gooni ah ugu hayeen qoomiyadii markaa la oran jiray Gala oo ahaa niman runtii ideolojiyadooda ay ku saleysneed dhulboob iyo layn iyo barakicin dagaaladaasi waxa ay sababeen in dad badan oo Soomaaliyeed ay ka hajiraan geeska Afrika Gala si gooni ah ay ugu qaadeen qoomiyadda gadabursi ee dhulkii ay deganeed guud ahaan hadaba arintani waxa ay ka soo maaxatay waayeelkii ama xeerbeegtidii markaa joogtay si loo badbaadiyo bulshada inta ka hadhay waa in la yagleelo dastuur aan birmagayda ah oo ay dadka yeeshaan kolka muddo badan ayaa wada tashi iyo gorfayn lagu maqnaa si arrimahaasi looga miro dhaliyo hadaba waxa la isla gartay oo si mugle oo dadku ama odayaashii xeerbeegtidii ay isla qaateen in la helo mar hadii saldanadii ballaarneed ee Adal Empire ay meeshii banaysay in la helo hoggaan runtii dadkan dhan wada matala ama ay bulshadu ku soo hirato garashadiisa aqligiisa iyo garaadkiisaba waxa la isla gartay ama la isla gorfeeyay wax habeenba meel lagu gorfeeyaba dharaarba meel la tagaba golba geed hoosti wax lagu xarxariiqo halba siday noqotaba arin waxa la isla gartay in boqor loo calama saaro ugaas Cali Makaahil Dheere iyadoo markaa lagu doortay ama lagu dooran dadku ay markaasi ay u arkayeen inuu yahay nin wax badan ama waayaha markaa taagan kala dabaalan karaya bulshadiisa waxyaabaha sida goonida lagu xushay waxa kamid ah aqliga Ilaahay markaa uu ku manaystay sharafta markaa uu hubanaa fasaxadiisa ama luuqdiisa yaani isagoo ahaa ruux aad u furfuran dabacsan hal adayg leh iyo qaabka uu markaasi ay noloshiisii u agaasinayd hadaba qodobada markaa iyada ayaan soo hori doonaa ay markaa la isla gartay in la fogro iyadoo loo soo kala horeysiinayo sida ay u kala mudan yihiin waxa la go'aamiyay oo la isla waafaqay dhammaan ummadii gadabursi in ugaas Cali loo yagleelo ama loo cimaamado in uu noqdo ugaaska guud ee madaxtinimada ama bulshadaasi hogaamiya waxay arrin sida ahaataba waxaana arintaasi daba socday xeerar fara badan oo xeer jajab u badan oo aynu dib ka sheegi doono laakiin imika waynu u guud mari arintani waxa ay runtii si fiican loogu bayaamiyay oo xeerbeegtidii ay si weyn isula qaateen in Cali ugaas Cali Makaahil
marka la doorto ay arintiisu noqoto sidaan soo socoto mar walba arintu waxay lagu jaangoynayay hadba sida ay wax isu bedelaan iyadoo oo markaasi ay jireen waxyaabo badan oo ku xirnaa bulshadaasi waxaa la isla gartay in arinta ay noqoto mid dhaxal ah ay kala dhaxlaan bulshada markaasi oo ka soo jeedo ama taranka ugaaska arintaasi oo arrin aad u fara badan inta aynu qodobka koowaad ku soo koobaynaa qodobka labaad waxa kale ay isla waafaqeen xirbeegtidii inay boqorka la taliyaan 100 nin oo qabaa'ilka oo dhan laga soo doortay lagana doorto 100kaas nin 4 nin oo boqorka goor waliba la joogto kuwaasi oo lagu magacaabi jiray afarta dhardhaar 100 nin oo bulshada Gadabursi oo dhan laga soo xulay misna laga sii dhaxulay 4 gooni ah oo loo yaqaan afarta dhardhaar ayaa qodobka labaad lagu yagleelay 3 inuu xukunka ahaado arrin laga wada tashado boqorka iyo 100 nin haddii ay arrintu tahay arrin aad u weyn xeerkuna ahaado mid ugub ah ama mid curad aba wixii ugub ah ee cusub waa inay gooyaan boqorka iyo 100 nin wixii curad ahna sidoodii hore ayuunbaa arrinku ahaanaya 4 boqorka kolka la boqrayo waa in madaxda Gadabursiga oo idil ay dadka waxgaradka ah iyo dhammaan qorweyntu ay joogaan caleemasaarka 5 kolka la isla waafaqo kadib in la geeyo ceelka la yiraahdo bagi oo ceel taariikhi ah oo si gooni ah aan uga sheekayn doono magaca sidoo kula baxay ceelkaasi oo gudihiisa uu yaalo dhagax cad oo aad u qurux badan kolka uu fash oo dabadeedna uu salka saaro ugaaska dhagaxaasi halkaana loogu maydho oo kolkaas laga bedelo dharkii hore ee uu huwanaa ama hugii hore ee uu sitay dabadeedna loogu bedelo hu cusub oo markaasi bacda laga fiiqay 6 kolka ceelkaas la geynayo waa inay ugu yaraan raacaan fardafuulka ama ragga fardafuulka oo qiyaastii 100 ahaa kuwaasi oo sii galbinaya ilaa iyo tan iyo ceelka inta laga geynayo kadibna marka uu soo guriyo noqonayo dib u soo raacayay inta uu ceelka ku maqan yahayna waxa la sii yagleelayay aqalkiisii marka uu degi lahaa boqorku dabadeedna waxaa dhici jirtay oo sida caadada ahayd mar walba la sameyn jiray ama lagu sii diyaarinayay aqalka uu markaa ugaaska tegi doono 4 nooc oo kamid ah caanaha 3 nooc aan iraada raali ahaada caanahaasoo midna yahay caano lo-aad caano geel iyo caano adhi waxaana inta badan la eegi jiray ama laga barakaysan jiray caanaha marka uu ugaasku ama boqorku uu doorto 7 dadka jaarka ah ayaa in ay ama hareeraha ama waxa badan yani arrimaha ay ka dhaxeeyo bulshadan Gadabursi dhaqanka yani ood wadaagta guur wadaagta calaf wadaagta intaba in lagula dhaqmo si wanaagsan oo ay nabadi hormuud u tahay lagana fogaado wax waliba oo khilaaf ku keeni kara bulshada hareeraha degan ama jaarka la ah ummadan uu boqorku hogaaminayo 8 xukunka xagga diyada in la raaca sida shareecada islaamka ay qabto 9 guurka iyo furiinka in lagu dhaqmo sida shareecada islaamku ay qabto qodobka 10 waxaana dhammaan lagu heshiiyey in qabyaalada ama qabiilka ama mililka qabyaaladeed laga fogaado guud ahaan ummadda Gadabursi caadadaasi oo runtii uu inta badan lagu ammaano inuu boqor Cali ama ugaas Cali oo gundhigeeda lahaa waxyaabaha aynu ka soo qaadan karayno oo uu ugaasku uu markaasi bidaamiyay ama uu buddhigeeda lahaa waxaa kamid ah in uu isaga oo doonaya in laga fogaado magaca in la adeegsado qabyaaladeed lana aanan la dhiraandhirin ee qabiilka magaciisa guud iyo sharaftiisa iyo haybadiisa halkaa lagu daayo ayaa waxa uu isticmaali jiray si looga fogaado in la yiraahdo reer hebel iyo reer hebel ciyaarta loo yaqaano gocusta oo waaga la ciyaari jiray waa ciyaarta maanta loo yaqaano rugbida inta gosha lagu qaata lala ordo gocusta ayaa la ciyaari jiray markaasi gocustaasi ragga ciyaarayo ay markii kasii horeysay ama waayadii hore loo isticmaali jiray magac beeleed ama magac shakhsiyadeed ayaa waxa uu bixiyay sida tan labada kooxood oo ciyaarayo ayaa midna waxa lagu yeerayay agoon midna abaale marka labada kooxood oo ciyaaraya midna waa agoon midna waa abaale waxa kale oo iyadana ahayd magaca loo adeegsado labada kooxood oo ciyaarayo dacar joog iyo dhagax joog qolada dhinaca dacarta dhulka dhagax leeyda jooga
iyo dadka dhinaca maxaa la yidhahdaa waa gubanka oo kale iyo oogada oo kale sidaas oo kale dacarjoog iyo dhagax joog. waxaa kaloo jiray cankaable iyo quude iyo laba kooxood iyaguna ah cankaable iyo quude ama doob iyo goobaale. doob, goobaale, quude, cankaable waxaasoo dhan waa magacdii hore ee asalku Soomaalidu isticmaali jirtay, mid walibana u baahan in daahfur lagu sameeyo ama dib loo ogaado. boqorku waxaa kale oo uu go'aamiyey ama ugaasku in uu ka tagay halhays ama murti dhaxalgal noqotay oo tan iyo maanta la adeegsado, taasoo ah oo uu yiri Gadabursi waa beel ee ma aha bah, isagoo ula jeedo in ummaddu ay tahay ummad aad u ballaaran oo dhul ballaaran degan oo aanan loo arag bahbah ama aan la isa soo yacni sokeeyaha iyo inaan dadka lasoo kala dhaweyn. Gadabursi waa beel ee ma aha bah waa murti aad u caanbaxday oo tan iyo maanta la isticmaalo. 11 ma qodob 11 arrintaas oo uu jeediyey in Gadabursiga aan loo ogolayn inay ku dhaqmaan arrin qabiil. 12 Gadabursigu wuxuu lahaa 6 nin oo xeer beegti ah oo xeerka Gadabursiga aad u yaqaan oo wixii xeer ah ee la isku qabto ama lagu murmo xagooda loola noqdo dacwooyinkooda ama qaabka loo agaasimayo ama loo dhirinayo ama loola tacaalayaba. 12 qodob ayaynu markaa insha Allah aynu maanta ku soo koobi doonaa. dabadeedna waxaynu ku xijin doonaa taariikhda ama bilowgii iyo caleemasaarkii ugaas Cali Makaayil Dheere hadduu Ilaahay yiraahdo. barnaamijka waxaa idin daadahinayay anigoo ah Suxfi Abrone. waxaad kala socotaan Ayro TV farsamadii injineer Muude. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.